geesigaan ku faano adduunyadu isgarato gayigaan ku noolahay gargaar bay u fidinayaan gayigaan ku noolahay gargaar bay u fidinayaan idinkuna garwaaqsada madaxweyne garashada idinkuna garwaaqsada madaxweyne garashada xaflad si aada loo soo abaabulay ayaa waxaa lagu qabtay bartamaha magaalada Minneapolis ee Minnesota xafladaas oo ahayd xaflad uu ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo wafdi balaaran uu hogaaminayay xafladaas ayaa waxaa loogu magac daray shirweynaha wadatashiga horumarka nabadgelyada deegaanka Soomaalida qurba joogta deegaanka Jamhuuriga Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Washington DC mudane Mowlid Maxamed sidoo kale xafladaasi waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka maaliyadda horumarinta dhaqaalaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Qadar Cabdi Ismaaciil afhayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Rashiid Isxaaq sidoo kale waxaa xafladaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Cabdi Fataax Sheekh Cabdi si aada loogu soo dhaweeyay gobolka Minnesota ee Minneapolis madaxweyne Cabdi ayaa waxa uu sheegay in dadka ka soo jeeda jaaliyadda Soomaalida ee Itoobiya inay wadankoodii ay wax gashtaan khudbada madaxweynaha oo ahayd khudbad u dheer balse wuxuu ka hadlay dhinaca caafimaadka dhinaca nabadgelyada horumarka inta uu hayay madaxweynaha uu ka ahaa dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya madaxweynaha wuxuu ka hadlay ururadii la heshiiyay oo NLFta qaybta nabadda qaadatay sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ka hadlay qaybta NLFta ee nabadda diidan ayay madaxda ugu sarsareysa qaybta NLFta ayaa waxa uu sheegay caruurtoodu haddaan waxaan nin raga u aqaanaa hadday maxaan ku dhahay caruurtooda keeneen waan ogtiin guddida fulinta maxamed ismaaciil ka bilow maxamed cumar ka bilow ee ku xigsi cadaani dhammaantood hadday run sheegayaan caruurtooda tarahii baa gaadhay waqtigii baa gaadhay caruurtii kale way dhamaatay ogaadeenay waa waqtiga caruurtooda ha yimaadaan wallaahi oo billaahi soo ma dhaaran haddii eeg waan dhaartay haddii maxamed cumar cismaan hadduu ma taqaanaayay halkaa wiilashiisa ingiriiska waa ogtihiin dadka u joogaya maraykankaba hadduu wiilashiisa keeno oo afar ka mid ku dhimataan ku dhintaan run buu sheegaya waan dhihi lahaa laakiin haddii wiilal yaryar oo kuwa wiilashiisu waxbarashada adduunka ugu qaalisan inay ku jiraan wiilal kale oo ogaadeenna mataqaana dab lagu shubay aad baan uga xumaa arrintaas anigu waxaan aaminay niman yahow lacagta gurguraya hadday run sheegayaan hadday ninka culimmadii markuu ku leeyahay salaada tuko hadduuna isagu tukanin inaad ka hor waa dhibaato soma iyagu marka hore hawaantoomaano yayna cararine ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar waxa uu mahadceliyay shacabkii faraha badnaa ee ka soo qayb galay isagoo ugu dambeyntii la dardaarmay shacabkaasi wuxuuna yiri wadankiina u soo noqda oo dhista Zakariya Aadan Universal TV North America